kadib dagaal qaraar oo ka dhacay Xalaaley oo ah deegaan u dhaxeeya Ceeldheer iyo Xarardheere Macawiisley waxay ku dhawaaqeen inay halkaasi ku laayeen al-shabaab aad u tiro badan maamulka koonfur galbeedna 24 saac ayuu u qabtay xaasaska iyo carruurta al-shabaab inay uga baxaan magaalada xilli al-shabaab ay cunaqabatayn saareen magaalada Baydhabo xogihii ugu dambeeyay iyo ilaa iminka dadka ka baxay magaalada ee xiriirka la leh al-shabaab ayaan halkan kuugu soo gudbinayaa haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay madasha online ka dhigo wehelkaaga aynu ka hormarnay wararka ka imaanaya Galmudug gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Xalaaley oo u dhaxeeya Ceeldheer iyo Xarardheere waxa ay sheegayaan in shalay gelinkii dambe ilaa ay xalay halkaasi dagaal culus uu ku dhex maray ciidamada deegaanka Macawiisleyda oo kaashanaya ciidan ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Galmudug iyo ururka al-shabaab dagaalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ay weerar jidgal ah ku qaadeen gaadiid qaad u kala gooshinayay labada degmo ciidamo badan oo gurmad ah ayaa xalay ilaa iyo saakay waxa ay gaareen Xalaaley iyo agagaarkiisa si loo sii baacsado al-shabaabka halkaasi weerarka ka fuliyay kooxda al-shabaab ayaa deegaanadan mararka qaar ka fuliya weeraro dhabagal ah oo ay ku beegsadaan ciidamada ammaanka iyo baabuurta sahayda noocyadeeda kala duwan u sida Macawiisleyda saraakiil u hadlay waxay sheegeen inay laayeen in ka badan 5 dagaalyahan oo ka tirsan kooxda al-shabaab oo ka mid ahaa kooxdii weerarka jidgalka ah soo qaaday isla markaana ay dhaawaceen kuwa kale hubna ay ka furteen inkastoo dhinaca al-shabaabna ay guulo ka sheegteen oo ay tilmaameen in wadadaasi khatar inay tahay ay dareensiinayaan dhammaanba dadka deegaanka ciidamada ammaanka oo kaashanaya dadka deegaanka ee Macawiisleyda ayaa waxay halkaasi ka wadaan baaritaano xooggan iyadoona weerarkan uu ku soo beegmay xilli si weyn loogu diyaar garoobayo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab oo la filayo inuu si xooggan uga bilowdo maamulka Galmudug gaar ahaan deegaano hoos yimaada magaalada Galcad kooxda al-shabaab ayaa meelo badan oo dalka ka mid ah ka bilowday weeraro arbushaada oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo ay ku muujinayaan in awoodooda weli ay taagan tahay cidna aysan ka hor imaan karin waxaana toddobaadkii aynu ka soo gudubnay siyaabo kala duwan ciidamada xoogga dalka noocyadooda kala duwan iyo kuwa Macawiisleyda ay howlgallo ka dhana ururka al-shabaab uga wadeen deegaano hoos yimaada Xarardheere Galcad Ceeldheer iyo weliba deegaano kale oo isla Galmudug ka tirsan iyadoona dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudugba aysan faahfaahin dheeraad ah arrintan ka soo saarin dhinaca kale maamulka koonfur galbeed Soomaaliya 24 saac ayuu u qabtay xaasaska iyo carruurta ururka al-shabaab dadka ka tirsan ee mas'uuliyiinta ah ee la yaqaano in magaaladaasi ay uga baxaan waxaana arrintan ay ka dambaysaa kadib markii ay cunaqabateen saareen ururka al-shabaab caasimadda kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya taasi oo 2 toddobaad jirsatay baabuur lagu soo xiray sameecado aad u waaweyn ayay ka hadlayeen mas'uuliyiinta maamulka koonfur galbeed dhinaca iclaaminta ama ogeysiisyadan u qaabilsanaa waxaana dadka ay wada maqlayeen iyadoo la leeyahay haddii aad tahay xaaska sarkaal ka tirsan ururka al-shabaab ama carruurtiisa aad ka mid tahay 2 maalmood ayaan fursad kuu siinay waa inaad uga guurtaa magaalada haddii kale wixii kugu dhaca innaga shaqo kuma lihin tani ayaa micnaheedu ay tahay in maamulka koonfur galbeed ay dareensiinayaan al-shabaab xubnaha ku jira ee ka soo jeeda deegaanka inaan looga aamusi doonin in carruurtoodu ay ku noolaadaan magaalada ayna cunaqabateen dhinaca kale ka saaraan al-shabaab ayaa xanibay dhammaan baabuurtii sahayda u siday magaalada ee ganacsatada u rarneed kadib markii ay sheegeen inaysan dhaafi karin deegaan 20 kiiloomitir u jira magaalada Baydhabo xaalkeeda waa uu culus yahay waxaana aad u adag in dadka danyarta ah magaalada ay ku sii noolaadaan magaaladan waxaa ku badan xeryo barakac oo ay degan yihiin dad ka soo cararay dhibaatooyinka abaaraha iyo dagaalamayaasha al-shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin kuwaasi oo xaalkooda horaanba uu ahaa alow sahal iminkana uu uga sii darayo xaaladdan iyadoona xitaa dadka deegaanka ee caadiga ah ee dhaqaalaha haysta ay ka cabanayaan qiimihii lagu kala iibsanayay raashinka quutul daruuriga oo meeshii ugu xoogganayd gaaray
marka la eego qaybaha kala duwan ee bulshada Baydhabo waxay aad ugu dhaliilayaan maamulka uu hogaaminayo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen inuu isha ku eegayo xaalka iyo sida uu yahay isla markaana Baydhabo ciidan uusan ku yareen banaankeedan ciidamada tiro badan ay joogaan laakiin aysan garanayn sababta looga aamusan yahay ururka Al-Shabaab in 2023 Al-Shabaab ay go'doomiyaan caasimadda kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed ayaa lagu tilmaamay waxaan la aqbali karin asaahate Al-Shabaab muddo ka badan 10 sano waxa uu go'doonsan magaalooyin iyo deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaasi oo laga fikirayay in gacanta Koonfur Galbeed iyo dawladda Soomaaliya dib loogu soo celiyo laakiin iska badaayay hadda xaalka waxa uu ku soo biyay shubtay Baydhabo la xoreeyo oo cunaqabateenta laga dulqaado wixii ku soo kordha muuqaaladeena dambe ayaan kuugu soo gudbin doonaa la sii wadaag muuqaalkan asxaabtaada kale mahadsanid